maalintii labaad ee campaignka Walk to End the Genocide ayaa waxaa la qabtay maalintii Axadda ee 20 bisha May 2002 laguna qabtay magaalada Los Angeles ee gobolka California. qaybtii koobaad ee munaasabadan ayaa waxaa horey loogu qabtay magaalada San Diego 22 bishii April, halkaasoo ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda ogaadeenaya ee San Diego lagu marti qaaday. ujeedada munaasabadan ayaa in lagu soo bandhigo isla markaana lagu jahli bixiyo dhibaatooyinka foosha xun ee uu leeyahay xasuuqa bini'aadan. haddaba waxaa mar labaad munaasabadan lagu marti qaaday ururka OYSU iyo Jaaliyadda ogaadeenaya ee San Diego oo ay horkacayeen xiriiriyaha jaaliyadka West Coast ee Mareykanka mudane Axmed Cali Yuusuf, gudoomiyaha Jaaliyadda San Diego mudane Ibrahim Cabdulqaadir iyo waliba gudoomiyaha ururka OYSU California Huda Ahmed. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dad gaaraya ilaa 3,000 oo qof iyo ururo kor u dhaafay ilaa 35 urur oo isugu jiray kuwa xuquuqul insaanka, kuwa samafalka iyo waliba kuwa aan dawliga ahayn. dadkii munaasabadan ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa actorka Josh Radnor oo ku magac dheer Ted Mosby ogana barateen showgii How I Met Your Mother. waxaa isna sidoo kale ka soo qayb galay actorka weyn ee caanka ah Dan Chiro oo ah actor, producer, philanthropist, author, isla markaana ah 4-time Academy Award nominee. Dan Chiro ayaa wuxuu dhigay filimo fara badan, balse filimka lagu xasuusta ahaa filimkii caanka ahaa ee Hotel Rwanda, kaasoo ka turjumayay xasuuqii bacnaa ee ka dhacay dalka Rwanda horaantii sanadadii 1990-meeyadii. mudane Chiro ayaa ah shakhsi u dooda xuquuqda bini'aadamka, wuxuuna ka mid ahaa dadkii sida hagar la'aanta ah u soo shacbixiyay xasuuqii Darfur ee dalka Suudaan. hadalladii uu ka jeediyay mudane Chiro munaasabada. One very important thing that this is an election year, and these are the times when we in the activist community can have our most impact. Our leaders are camping out, they're canvassing all areas, social network, Twitter, everywhere, Facebook. They're trying to find out what are the key points that they need to stress and the key things that they need to raise in order to please their constituency to get votes. This is where we can leverage our power in the best way possible. We can organize, we can network, we can continue to find ways to gather and show our strength. And I would just encourage you to continue to do that as we go forward and be creative. We often think that our cries are being unheard and they're falling on deaf ears, but I'm here to tell you that that is not the case. And 5 years ago, when the movement sort of really had a huge upswell, it was because of the student movements. It was because of sanadkani waa sanad doorasho, xilliyadana waa xilliyada dadka xuquuqul insaanka u doodayay ay ugu waxtarka badan yihiin, uguna awoodda badan yihiin. sababtoo ah ayuu yiri madaxda la dooranayay waxay ku qasban yihiin inay dhageystaan shacabkooda waxyaabaha ay ka cabanayaan. waayo ayuu yiri codkayaga ayaa ku xiran dib u doorashadooda, sidaa daraadeed waa inaan codkeena xoojinaa oo aan wax ku qabanaa. haddaba ururka OYSU ayaa fursad u yeeshay munaasabada kadib inay la kulmaan mudane Chiro, faahfaahin dheeraadana ka siiyay xasuuqa ay dawladda Itoobiya ka wado dhulka Soomaalida ogaadeenaya, wuxuuna ka ballan qaaday inuu arrinta ogaadeenaya adduunka u soo bandhigi doono. waxay kaloo la kulmeen ururku documentary film producers Jeremy oo iyagu ah niman ku caanbaxay filimaanta documentaryga ah, waxayna ka ballan qaadeen inay film documentary ka samayn doonaan xaaladda ogaadeenaya. isku soo duuduuba munaasabadan oo ahayd fursad qaali ah ayay Jaaliyadda iyo ururka OYSU kaga faa'iideysteen inay kula kulmaan hay'ado kala duwan iyo ashkhas daneeya xuquuqda bini'aadamka, waxayna ku dhamaatay guul iyo jawi aad u macaan. Abdiraxmaan Maxamuud Cabdi, Abdiraxmaan Hollywood, San Diego, California.